بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعد سلطان عبد الله محمود معنا كترسل معلمين تدقى معادك من نمو Institute for Political Science and Knowledge. ما أنت وحرمنا سؤال إن بدن نوغا إيماني بالشدة برتنا فيسبوك على سوشيال كاستعمالنا أنا سؤالها نصودقني ضد بدن أو الرياقي أو سؤال بدن نقصو ويدينا وايشرين marka maanta waxaan rabnaa inaan alanis gareyno haduu alla idmo insha Allah qaabka CV-ga loo qoro haduu alla idmo insha Allah how to create CV baan rabnaa maanta inaan sharaxno haduu alla idmo insha Allah waxa soo jeedinay aniga Sultan Abdullah Mahmoud macadka midnimo Institute for Political Science and Knowledge waxa ka go'an in waxa way si dhabyar iyo si waxa weeyaan hawl fududaysan in waxa way goobtaada shaqo xaafadaada waxa weeyaan kugu soo gaarsiyo waxbarasho qualified ah marka waxaan rabnaa hal page ilaa 5 page oo kale inaan ku soo koobno qaabka CV-ga loo qoro qaabka ugu wanaagsan marka rabto inaad CV qordana waxa ugu muhiimsan 7 qaybood baa laga fiiriyaa CV-ga CV-gaaga dad khubaro ah waxaan gacanta u galayaan dad khubaro ah waxa way CV-ga analyze gareynaya 7 qodob hadii CV-gaaga laga helo CV-gaagu waa professional 100% waxa tahay qofka ugu mudan oo marka la qaadanayo baad number 1 waxa kamid ah personal data qofka shakhsiga waxa weeyaan basic information case profile qofka shakhsiyadiisa care objectivity-ga bayaanka iyo company-ga iyo ururka hadba ka shaqada ka doonto work experience-ga khibradiisa shaqo khibradiisa aqoon iyo khibradiisa waxbarasho institutions attend with higher education isku meelaha ugu weyn waxbarashadiisa ku soo qaateen professional and training qualifications-ka reference oo qofkan 7 qayb qofka laga fiiriyo good marka waxaan rabnaa inaan maanta analyze gareyno CV inta CV waa maqashaa maxay tahay CV waxa laga soo gaabiyo curriculum verb baa loo soo gaabiyay ama curriculum verb hadba saw mataqaan marka qodobka koowaad baan galeynaa anagoo waqtiga ilaalinayna personal data waxa way qofkan basic information kiisa waa for example local name ki magaciisa aniga hadda magacayga ku qoran gender ko qofku yahay nationality-giisa language ko qofku ku hadla English Somali for example local markaas inaan qodho waa luqadayda hooyo waxa la mother language hadii taa luqado yar yar oo ku hadla waxa la litik Arabi oo kale ama litik hadba saarta dhaysan sidoo kale lambarkaaga waa qoraysa sidoo kale ciwaanka laga la soo xiriir lahaa waa qoraysa sidoo kale waxa qoraysa meeshii waxa way la soo xiriir la addresski waxa soo dhan waa laga qiimeynaya waxaan rabnaa hadda maanta inaynu qiimeyno profile-ka qofka shakhsiyadiisa waa meesha ugu muhiimsan oo qofka CV-giisa laga fiiriyo waa CV-gaaga meesha ugu muhiimsan oo laga fiirin karo xaggaas waa marka inaad qiimeyso oo la socoto waa very talent waa marka CV-gan waxyaalaha ugu muhiimsan waxa kamid ah halkan markaad rabto inaad qiimeyso oo kale waxa leenahay waa good moral and disciplinary waxa weeyaan anshaxiisna waa wanaagsan yahay skillsna waa wata sidoo kale wuxuu aqoon u leeyahay maamulida waxa way xirfadna waa leeyahay sidoo kale nidaamka xisaabaadka waa yaqaan skillsna waa leeyahay xirfadna waa leeyahay wuxuu awoodaa inuu shaqeeyo xilliyada adag sidoo kale uma baahna positive teamwork ability efficiency and to the little profession uma baahna qof professional ilaaliyo waa nin araga waa nin shaqo badan soo qabta waa nin la yaqaan marka uma baahna is professional in la ilaaliyo is professional uma baahna sidoo kale waa excellence cultural experience-ga waa meesha ugu muhiimsan oo lagu kala har halkaas waa kamid tahay caalamka 3 waxyaalood waa la qiimeeyaa 3 qayb waa la qiimeeyaa CV-gaaga ku jiro number 1 waxa way disciplinary anshaxa skills-ka xirfada iyo cultural experience-ga dhaqanka kala duwan iyo hadba sadar sababtiga u hesho intaad company la soo shaqeysay inta waxa weeyaan company cadaan wax rabaan la soo shaqeysay khibradaada experience culturalki waxa soo dhan waa la qiimeynaya good sidoo kale career objectivity-ga marka la rabo in la qiimeeyo career objectivity waxa la yiraahdaa bayaanka u degan ama bayaanka ama goal orientation-ka ama hadafka uu company-gu leeyahay haddaad company wax ka doonato ama haddaad urur shaqo ka doonato waa inaad ururkaad markiisa hore wax taqaanaa oo aad soo abla garaysaa waxyaalo badan baadhaa offset-yadooda baadhaa page-kooda baadhaa waxa way dadka wareysataa hadaftooda iyo goal orientation-kooda waxay aaminsan yihiin wax adiga laga rabo si aad hadda u hesho wax la yiraahdo hadda u hesho align with overall analysis in ku sameeyo organization in dynamic challenge environmental kana ku sameeyo
hadhow caqabad kasta, caqabada dhaqaale iyo caqabad bulsho iyo caqabad amni inta waa ka hormaanaysaa si aad ula qaybsato dhibka waxna aad kusoo siyaadiso dynamic challenge caqabadaha markaa imaan karana aad waxaway kala qayb qaadato. sidoo kale available educational skillska inaad la timaado aqoontaadii, inaad kala timaado work experience, inaad ka horumariso professional career-kaaga. sidoo kale achieve organizational set goals, contribution as much as you can inaad ku hormari kadhaa. sidoo kale waxyaalaha kaloo la iska fiiriyo waxaa kamid ah work experience-ga. work experience-ga waa meesha qofka laga qiimeeyo, waa first one wa xagee kasoo shaqaysay 2008 ilaa 2009 maxaa shaqada uga soo tagtay. hadda waxay qoran English teacher in Tadamo buu soo shaqayn jiray boosasa Puntland Soomaali for 1 year 2008 ilaa 2009. waa lagu weydiin karaa hadda interview-ga waxyaala waxaa jira aanu soo bandhigi doono iyagoo qoraal 13 qodob ah oo ku saabsan mistake interview. during the interview marka lagu jiro kale mistake iyo khaladaadka dhaca way kamid tahay work experience-ga. shaqada ka waran haddaad soo qorato wax aadan weliga aadan ka shaqeyn, meel aadan work experience aadan shaqo aadan online, haddaad tiro company hebel iyo urur hebel baan la soo shaqeeya oo beena oo feega, adar CV-gaaga isaga ciyaareen. anu runta kuu sheegaya CV-gaaga waa inuu yahay CV analyze garaysan, waa inuu yahay CV qiimaysan, waa inuu yahay CV min bilow ilaa dhammaad analyze garaysan, xagga waxbarashada, xagga waqtiga, xagga professionalka, xagga waxa weeye work experience-gaaga, khibradaada shaqo, khibradaada waayo aragnimo, khibradaada nololeed, khibradaada waxbarasho. waa inaad isku mid kasta xilligaad jaamacadda dhameysay waqtigaagii waa inaad saa u balfireysaa wey. sidoo kale community haduu kasoo shaqayn jiray organization Boosaaso for 6th month January ilaa July 2010 oo qorayin 6 bilood buu ka shaqeynay 6 bilood 2010 oo qorayin. sidoo kale finance assistance wuxuu ahaa company goals group ka ah between inta u dhaxaysay 10 ilaa 12 waa qorayin oo wax ayaman waa director Jeter buu wuxuu ka aan teacher buu wuxuu ka school Nawaawi June 2012 ilaa October 2013. institutions attended with high education is maxaa kamida meelihiis waxbarashada kusoo qaatay maxaa kamida ata halkan ku qoranta bachelor degree wuxuu kusoo qaatay for international business in East Africa University Boosaaso wuxuuna qaatay jaamacadda dhameeyay 2005 ilaa 2009 afartaas sano ku jiray. sidoo kale nidaamka xisaabaadka wuxuu ka qaatay diploma Biden Institute bishii October buu ka qaatay 2013 finish wuxuu dhameeyay March 2014 uu dhameeyay. sidoo kale MBI ama MBA iyo BGDM oo International Business Management 2015 ilaa 2016 halkaas wax kusoo qaatay Muqdisho. sidoo kale professional and training qualification iyagana waxyaalaha la qiimeeyay kamid tahay. logistic management for professional certificate waxyaalaha soo qaatay waxa kamid ah movement learn and land. logistic waa muhiim wuxuu kasoo qaatay Cumud University Boorama June 2013. sidoo kale project management wuxuu kasoo qaatay Midnimo Institute for Political Science 2016. sidoo kale social or corruption management wuxuu kasoo qaatay jaamacadda Rilsi August 2017. sidoo kale leadership and management skills for professional goals University kasoo qaatay. reference-ga waa muhiim. reference-ga waa la weydiinaya qofka reference-ga xaga kasoo qaatay waa lagu leeyahay wax laga xisaabta. reference-ga available reference qofka rabtaan baad weydiin kartaa waa dhigi kartaa. ama aniga saddex qof ay qoran Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhamuke, Professor Maxamed Cismaan Jawaari, Xabiib Cabdisalaan Axmed. waa niman aqoon la professional oo jaamacadaha iyo wax way ahayd badan iyo company badan haysta. hadda xogta waa laga weydiin karaa. marka waa inaan nidaam fiican iyo waxa weeyaan analyzing saasa loo sameeyaa. waa sidaas basic ah. CV-ga waxaan maleynayaa inaad ka bogoteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.